wuxuu soo galay gurigiisa xilli dambe oo uu shaqo ka yimid. markiiba waxaa qayle iyo buuq kala hor timid xaaskiisii oo uu saakay nabad iyo jacayl uga tegay. waxay qaylada waddaba waxay ku dhegtay kulleytigiisii kana daadisay galuusyadii shaatiga. wuxuu bilaabay inuu isdabaaliyo, laakiin waxay ka codsatay inuu furo. way qaylisay oo ay iswaashay. balaayo ayay iska dhigtay ilaa ugu dambayn ay ku adkaysato in la furo, sidaasina aan lagu wada joogi karin. dhowr jeer ayuu ku yidhi, walaalay cuudubillayso oo shayddaankii iska naar. misena waaba ka sii dartaa oo shayddaankii adduunyada lala bilaabay ayaa saaran. ugu dambayntii wuxuu ka codsaday inay ay keensato warqad iyo qalin si uu furiinkeeda u caddeeyo. intay boodday ayay buug meesha yaallay warqad ka soo jeexatay. qalinna meesha ay ka soo qabsatay ayay ku tiri, ifur dulliihow nacaska ah, wax ilmo loo dhala ma tihide. intuu wejiga cara ka buuxiyey ayuu warqaddii wax ku xariiqay, iskuna laabay ayuu u dhexgeliyey buuggii ay ka soo jartay markii hore. kadibna isaga oo xanaaq hawadaas marayo ayuu albaabkii ka sii baxay, qabna u siiyey. islaantii meel ayay fadhiisatay iyada oo go'aanka warqaddiina aana kala furin. cabbaar ayay aamustay. intay sheeke isku bilowday ayay keligeed istiri, waad fududaatay ninkaagiina inaad saas ula dhaqanto ma saxnayn. arrinta si kale ayaa loo xallin karay ee inaad furiin gaarsiisa ma ahayn. hadda maxaad samaynaysaa? taleefon ag yaallay ayay soo qabsatay. waxay bilowday in ay wacdo maskiinkii. waan ka xunnahay, nambarkaad wacday wuu dansan yahay. way sii yaabtay. tolow ma sidaas ayuu ku baxay misena wuu soo laabanayaa ayay isweydiisay. ilaahay waxay ka bariday inuu soo laabto oo ay ismaslaxeeyaan labadooda. waxay iskula sheekaysatay inuu maslaxada aqbali doono. oo muxuu ku diidi awalba? adiga ayaa ka gardaraa oo faraqiisii ku dhagaye. sidaa ayay isku qancisay. ninkii isma uusan waalin. meel meeshaan ah ayuu intuu saaxiibbadii u tagay ciyaar iyo sheeko isaga tuurtay, iskana sugay inta ay saaxiibbadii shayddaanku ka tegayo oo ay dib u soo wacayso. xilli 10 habeennimo ama 4 saac ay tahay ayay albaabkii garaac ka maqashay. iyada oo ordaysa oo kabala'aan ah ayay fag siisay oo iyada xitaa aan weydiin qofka uu yahay. ma uusan salaamin ee inta uu qolkii kale iska galay ayuu hoos ka soo xirtay. waryaha furno, nacas yahow, weli ma ii xanaaqsan tahay? walaalay aan kaa seexdo, anigii adiga waxba nooma dhexeeyaan ee iska kay dhaaf. wixii aad iga rabtay waan kuu sameeyey ee fadlan iga seexo. kama tegin. waxay bilowday in ay bariso oo ay toogto inta uu albaabka uu ka furayo, shayddaankana isaguu iska naaro markiisa. arrimahan ay labadooda hoos u dhammaystaan ayay ka codsatay. wixii furiin ah ee dhacayna ay sheikh iyo khiil kale loo raadiyo. markuu arkay inay run ka tahay, cabbaarna uu albaabkii ku dhegaysanayey ayuu albaabkii ka furay. intay isku duubtay ayay ku tiri, iga raalli ahaaw, warqaddan baas ee aad qortayna naga jexjeex wixii ku qoranba. maya, warqadda soo qabo. way diidday iyada oo necbaysatay wixii ku qornaa ee shayddaanka ka shaqeeyey. maya, haddii aad raalli ahaanshahayga rabto soo qabo warqadda. ayadana way aqbashay oo warqaddii ayay kala furtay. misena waxaa ku qornaa sidan, xabiibi waan ku jecelahay, kumana quuro inaan ku furo, ee markii uu shayddaanka uu kaa tago waan kuu imaan. intay fadhigii ka istaagtay ayay ku tiri, naga tag wax yahow, waaba naga nixisay.